السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دمان waxaan idin galab wanaagsan habeen wanaagsan inta habeen u tahay maalin wanaagsan inta maalin u tahay dunida dacalada inta joogto waad u jeedin xalay markii nuskan dambeysay warkii u dambeeyay inaan dhahay Fahad Yaasiin haddaana laga qaban qaranka Soomaaliyeed dhibaato weyn ay u soo wadaa dhibaatadana saakis laba saakeebo waxa lagu waabiristay qarax baa lagu waabiristay oo ka dhacay isgoyska Lambraber qaraxaas oo ka dhacay bar control ee joogto waxa ugu weyn oo la ilaalin karana waa admigana waxaan ni sheegayaa intuu Fahad Yaasiin faraha kula jiro wax toosay ma leh aniga ma dhahay Fahad Yaasiin dambi oo lahayn kor kama saaray laakiin waxay u eg tahay bas waxaan u maleynayno annaga waxaan u maleynayno waxay tahay Fahad Yaasiin intuu siyaasadda ku jiro Soomaaliya siyaasadda qaranka Soomaaliya intuu ku jiro inuu qarax dhamaanaynin dhibaatana dhamaanaynin markii yar la isqabsadana ayuu wuxuu ku jawaabaa qarax iyo balo aan la ogeyn taas kadib waxaan u tacsiyeenaynaa inta dhimatay Allah u naxariisto ee qaraxaas ku soo gaaray inta dhaawacamatana Ilaahay dhaawacooda ha u yasiro oo Ilaahay u fududeeyo kuwa ka soo kaco Allah ka dhigo maanta waxaan noo cadaatay oo aan ognahay dhamaanteena haddiinan isku duubnaanin in cadowga oo naga faa'iideysanayo cadowgu wuxuu noo soo marayaan waxa waaye isku khilaafkeena iyo doodeena ka socoto dowladda Soomaaliya qaasatan dadkii shalay iswatay ee dhaxdooda ka dhaxdhacday shalay xumaatay wanaag baad waas wadateen maantana inaad isla baxdaan Ilaahay ni rajeeyo waxaan intuu dhiigna naga quban dadna naga dhamaanin waxaan ni rajeynaynaa in aad quusataan oo aadan maatada u turtaan dalka Soomaaliya sida ogtihiinba ayaamahan waxa ku soo biirayo khilaaf ka socdo Roble iyo Farmaajo khilaafkaasna oo saameysanayo qof walba labada dhinac inay raacda noqoto qof walba siyaasadda ku jirna wuu saameystay haddana waxa sii dheer dad baa hubso oo Mooryaan ah jirta oo wada ognahay oo u weyn yahay gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa waxay tabakaalaysanayaan in ay dagaal ku qaadaan wixii aan raacsanayn team Farmaajo taasna waxay tusaysaa in ay burbur u soo biirin karto dalkeena hooyo burburkaasna waa in aan ka hortagnaa haddaan nahay ragga jecel siyaasadda iyo degnaashada Soomaaliya qaasatan reer Muqdisho waxaan u sheegayaa in ay il fiijan ay ku hayaan dowladda waqtigeeda dhamaaday waxay nagu soo biirin karaan abadan oo jirin inay wax naga naaqusiyaan maahane shaqaalaha oo lacagta ilaa hadda la siinin waxa leeyahay lacagtiina bishan iyo bisha horeba nima soo socoto maadaama khilaafka uu jiro mar walba khilaaf dhacana waxay yimid lacagtiina waa inaad taasna u ahaataan yani aad u fiijinataan in yani lacagtiina mar walba uu khilaaf jiro oo lacagtiina muran ay gali karto taasna waa horumarka oo dunida aan la qabsanin waa taas noo keeni karto ma ahan khilaaf oo xagga lacagtiina in la cunayo iyo waxa siitay dadka is wadadaan ma ahan waxa waaye dowladda ayaa tabar lahayn markuu khilaaf dhaco waa in lacagta la hakiyaa saas ogaada waxaan leeyahay inta dhimata Allah u naxariisto inta noolne oo dhaawacanne Ilaahay ha u yasiro laakiin hal isku duubnaado soona booqo hoyga habeenka